waxaana reebay dawladda Soomaaliland wasiiradeeda madaxweynayaasheeda madaxweyne ku-xigeenadeeda wax walba halka galbeedun baa loo sii wadaa gobolkana waa la nacay waa gobol aan la rabin wuna go'ayaa uu iska tagaya haddii aan wax laga qaban badaniba tag weligii boosas ku magacaaba madaxweyne ku-xigeenka aykan shaqalaha isu dhiiba reer boorbiyo reer Hargeysa wallahi aanan idinka yeelin inaad hadba anaga vacation oo soo tagtaano foox iyo malab naga soo doonataan nagana qadisaan wixii manaafacaadka lahaa koorisadi bad naga qadiseen seminaaradii baa qadiseen scholarshipski baa qadiseen 300 oo qof oo degree iyo isugu jira ayaa maxay haytay aanu kala anahay hal qof raacilka midan xishoonin baan ubad xishoonin meelan isku dalahayn meelan isku dawladahayn maxaa noo sheeganaysan hadda 300 qof naga qadiseen gobolka dhan oo cid walba ku nooshay qabaa'ilka xataa areeda iyo kuwaas xataa cadaalad darrada inta leeg ma sameeyaan wallahi la sameeyay Ethiopia ma sameeyso waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo maxay tahay reer gobol Sanaaga inay tashadaan cid ma rabto wasaaradda tacliinta arkana tii caafimaadka arkana tii deegaankeena mid walba waynu arkayna wasaaradda arrimaha gudaha arkayna maalin walba dhibaatada inoogu daran waa nabadgelyadii iminka war waxaan leenahay nabadgelyadana ku itaala waxaan been la sheegayo qolada galbeedku waxay rabtaa inaynu isku marano oo isku wareero oo dabeetana ay nimcada gurtaan ha ka yeeleen nabadda ilaasha labada gacmood isugu geeya nabada buurta joogana annaga keenayna waa nabad wax dhibaatay ma jiraan cidina yeeshakiin hadba meelayaan wax yar laga tuurin iyo xabad yar waxa weeyaan nabadgelyo ayaynu u baahanahay tacliin sidaasaynu ku helaynaa